بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام يا دمانبا انت ku xidhan channelkan cilmiga econometricska aynu kusoo qaadanay sida taxanaha afka qalaad aqoonta miyaa kanaalka afka qalaad aqoonta miyaa aynu kusoo qaadanay waxbarashadii bilaashka ahayd ee cilmiga econometricska ee inoo soo taxnayd aynu hore ugu soo tibaxnay 3 qaybood oo yaryar oo ah dadka beginnerska inay la jaan qaadi karaan. imikana we are going to take off xoogaa kor baynu yara kacaynaa marka dub baynu bilowgii ilaa dhexdhexaad hadhowna insha allah si step ayaynu gacanta kaga shaqeynaynaa. marka imika regression analysis baynu kusoo jirnay. haddiinu dib u soo celino regression analysiska, how to use regression analysis to predict the value of a dependent variable based on an independent variable. hore waxaynu soo tibaxnay in regression analysiska inuu yahay qiyaas la qiyaasayo dependent variable-ka oo y-dii oo ah y-da yani data kasta oo x iyo y way kala leeyihiin oo ah dependent variable waa vertical axis-ka y inooga taagan y-dana dependent variable baa la yidhaahdaa sida aan hore usoo qaadnay, iyadoo sal u ah oo ama isku lamaan yihiin isku xiran yihiin independent variable-ka. waxay la yidhaahdaa laba gacmood yani laba gacmood oo taakule leh oo isku xidhan. marka yani dependent variable iyo independent variable waa laba shay oo iscaawinaya oo isku dhegsan. marka regression analysis waxay qiyaas ka sameysaa datada ka kooban dependent variable-ka iyo independent variable-ka ama x iyo y. waxay kale oo regressionalka inoo sheegaysaa the meaning of regression coefficient p0 and p1. hore waxaynu usoo qaadanay p ka duwan tan, laakiin labada video aynu soo qornay iyo bidana waa isku mid. waxaan kale oo evaluate garayn karnaa assumptionska regressionka oo iyaguna ay leeyihin waxaa jira assumptionno gaara oo aynan markii hore tibaaxin aynu imikana arki doono. waxay kale oo aynu sameyn doonaa slope-ka iyo xiriirka uu leeyahay correlation coefficient-ka iyo magaranaysa ANOVA waxa la yidhaahdo inference-ka difference-yada u dhexeeya. waxaan kaloo to estimate mean values and predict individual value. waxaynu qiyaas sameyneynaa daatooyinka celceliskooda si daatadii aynu u qiyaasno iyada lafteeda oo iyadana wax had iyo goor marka aynu daato sameyneyno waxa ugu muhiimsan waa inta laga qaata waa average-ka ama mean-ka ama celceliska oo ama conditional y on x baa la yidhaahdaa oo inta badan. waxaynu eegeynaa sidoo kale correlation iyo regressionka xiriirka ka dhexeeya ama waxyaabahay ku kala duwan yihiin. scatter diagramka can be used to show the relationship between two variables. waynu soo qaadanay sawirkii ama qeybtii saddexaad ugu dambeysay inaynu ku sameynay y-deni iyo xt scatter diagram oo aynu sameyneyno x y xiriirka ka dhexeeya. waxaan kaloo oo eegeynaa correlationku isagu wuxuu cabiraa awoodda xiriirka ka dhexeeya x iyo y ama daatadii labadii shay ee laisu eegayay. taana waynu soo yara tibaxnay waynu ku tilmaanay inkastoo imikana aynu eegi doono, laakiin correlationku wuxuu inoo tusaa ama inoo caddeeyaa xiriirka xoogan ee ka dhexeeya laba shay. taasaa la yidhahda marka linear relationship. correlation is only concerning with strength of relationship. correlationku wuxuu keliya uu khuseeyaa awoodda xiriirku nooca uu yahay, ma mid togan ba ma mid taban ba ma mid daciifa ma midaan jirinba. strengthskaas ay correlationku inoo sheega.
marka waxaynu eegeynaa waxaynu warbixin yaro guud ka bixineen inkastaan hore usoo tibaaxnay. regression analysis-ku wuxuu cabirayaa xiriirka ka dhexeeya dependent variable iyo independent variable. wuxuuna sharaxaad ka bixiyaa isbedelka ku dhaca y, sidoo kale wuxuu u saameynayaa independentka x-ka, oo sidii aan cashirkii u horreeyay usoo qaadanay x y haddii ay korodho x-na way kordhi kartaa, y haddii yaraato hoos u dhacdana x-na ayuu xiriirka ka dhexeeya. dependent variable-ka haddiinu eegna what's the dependent variable-ka we wish to predict or explain. dependentku waxa weeyaan waa shayga aan dooneyno inuu wax sharaxo ama caddeeyo. independentkuna waa shayga loo isticmaalayo inuu caddeeyo ama sharaxaad ka bixiyo value-ga variable-ka y-da ama dependentka. simple linear regression modelku only one independent variable x. haddii aynu simple linear regression modelka waxa weeyaan waa laba y iyo x. waxaa kaloo jira multiple linear regression model ama analysis, laakiin aynaan weli gaadhin. laakiin kan waa simple, waxaynu eegeynaa oo keliya x oo keliya oo mida iyo y-di, xiriirka labada ka dhexeeya. xiriirka labada ka dhexeeya waa kan, oo wuxuuna tusayaa correlationkii aan soo sheegaynay oo kale. waxa weeye linear relationshipku y iyo x xiriirka ka dhexeeya. marka xiriirba ka dhexeeya, xiriirkaasi ma miyahay mid filiqsanaantaasi ma mid strength ahba ma mid weak ahba. iyada lafteeda waxaa lagu cabiraa percentage-ka boqolkiiba, waa -1 to +1. laakiin waynu eegi doonaa. laakiin markaasoo kale xiriir baa jira markana xiriir bay leedahay. kan waa mid taban, kana waa mid tukan, kan kuwana xiriir ma laha. curvilinear relationship baa la yidhahda. labadana laba maaragta fiican maaha, laakiin labada aan u baahannahay xiriirkooda waa kan noo soo socda. kan waxaa la yidhahdaa waa mid strong ah, oo ah xiriir strong ah, oo waxaa laga yaabaa inuu yahay boqolkiiba 90 something ama 89 boqolkiiba. kana inuu yahay sidoo kale xiriir adag, laakiin kan waa taban yahay, kana wuu togan yahay. kuwan xiriirkani uu aad buu kula filiqsan yahay, marka xiriir daciifa weeyaan. waa weak relationship baa la yidhahdaa oo togan. kana waa negative weak relationship, uu noqonayaa mid taban oo isaga laftiisu daciifa. marka ayay xaaladdu sidan tahay, filiqsanaanta aanay xiriir ka dhexaynin waxay noqonaysaa mid aan xiriir lahayn, no relationship. kuwan marka modelkii noogu muhiimsanaa ee simple linear-ka. tan waynu soo aragnay waa yi, waa dependent variable baa la yidhahdaa. kanna waa parametriskii kuwaan sheegnay ama interceptigii. kana waa slope ama population slope coefficient. marka aanay head ama dhibic korka ku lahayn wuxuu noqonayaa population. marka maaha kii kii qiyaaseedkii maaha ama predictionkii maaha. kana waa populationkii, waa asalkii observationka ama daatooyinka. marka waa b0 b1 xi. kana waxaa la yidhahdaa error time, error time ama disturbance ama stochastic disturbance-na waa la yidhahdaa. waynu sharaxi doonaa insha allah. b0 b1 xi and ei. kan ei inagu maalintii hore waxaynu usoo qaadanay ui baynu ka dhignay. sidana waa loo qori karaa, labada noocba waa loo qori karaa. ui-na waa loo qoraa. epsilonna waa loo sameeya. epsilonna waa af ingiriis waa lagu yidhaahdaa. marka modelkeena laga duulayay ee regression analysis-ka ee koowaad, ee equationka koowaad waa ka. haddii aynu si kale u eegno, waynu baartkii koowaad ee ugu horreeyay waxaan kusoo qaadnay in slope uu
linekaasi uu yahay regression analyze, slopeku b1 uu yahay, xaggana hoose waa x, xagganka sarena waa y. haddii x ay korodho y-na way kordhaysaa, marka slope baa ka dhexeeya. marka kan xaggana waxaynu kusoo qaadnay inuu yahay interceptkuna b0 oo halkan. observationkeeni ama dhibcaheenii waxay ku kala filiqsan yihiin, ay ku kala daadsan yihiin, qaarna kor bay jiraan oo waxay ka sareeyaan lineka regression lineka, qaarna way ka hooseeyaan. wixii ka sareeya iminka saddexda ka sareeya waa positive, kan waa plus, kana waa plus, kana waa plus. kuwan hoosena waa negative, waa minus. wixii calaamada ka sareeyana waa toganayaal, wixii ka hooseeyana waa tabane. observationkaasi yani waxa weye datadii asalka ahayd aynu soo urursanay, sidii aynu inaga examplekii hore aan u sameynay x10 iyo y, saacadihii wax akhriska iyo saacadihii imtixaanka grade pointka. simple linear regression equationkeedii waa kan. markan haddii ay y-dii hat yeelato, markan waa way qiyaaseed, estimation baa la yidhahdaa, waa prediction. daatadeeni ayaynu hadda qiimeyneynaa. marka wayda waa qiimeynta. p-dan yar inaga waxaynu haynay p hat baynu halka gelinay, laakiin mararka qaarkood macalimiintu sidan oo kale p yar oo u dhiganta si estimationka ayay noqonaysaa, iyo b1 xi. b0 and b1 are obtaining by finding the values of b0 and b1 that minimize the sum of the square differences between y and y hat. b haddaan si kale u idhaahdo, interceptka iyo slopeka had iyo goor waxaynu la sameeyaa si loo helo. waxay b-na u dhigantay b1, horena waynu usoo dhiganay casharadii ugu horeysay. si loo helo waxaa la sameynaya wax la yidhaahdo in la yareeyo oo la minisgareeyo, minimize lagu sameeyo. minimize sida lagu sameynaya, waxaa la sameynaya dhibcahan oo inta badan laysu tuuro, plus minus way isku tuurmayaan. dabeedna markaa waxaa lagu minisgareynayaa in aynu daatadii la kala hufo oo la haadiyo, oo markaa lineka lagu toosiyo ayaa markaasi ay noqonaysaa. taasna waxaa aynu ku sameyneynaa xisaabaad. marka waxaa ka mid ah minimize y the difference between the y and y hat squared, y minus y hat oo la minisgareeyo, oo waxay la mid tahay minimizationka isku darka y oo laga jaray b0 plus b1 xi squared. iyadoo aynu gacantaynu kaga fiican tahay inaynu kaga shaqeyno oo si fiican si loo fahmo, mar dambe gacantaynu kaga shaqeyn doonaa. laakiinse iyadu waa equation muhiima oo waa sida lagu soo saaro b0 iyo b1. p1 b0 hadda waa unknown equation, laakiin waxaan dooneynaa inaynu helo b0 iyo p1. b0 iyo b1na waynu soo saarnay, sidaasa lagu b1 way noqonaysaa iyo b1 horena waynu soo yara tibaaxnay. coefficient b0 and b1 and other regression results in this chapter will be focused in Excel. si ay u fududaatana Excel baynu ku fududeyneynaa p0 iyo p1. sidoo kale horena waynu soo yara tibaaxnay. b0 is the estimated average value of y when the value of x is 0. marka la yidhahdo b0 aynu equationkeenii hore soo qaadan, b0 haddii layska ilaawo b1 ama b1 aan ka dhigno 0 ama b1 lagu dhiftay xi, haddii aynu 0 kasoo qaadno ayaynu markaa macno yeelanaysaa b0. p1 haddii kale b0 waa interceptive, macno badan inta badan in the real world waxba macno badan ma sameynayso.
b1 laakiin b1 waxaa loo qiyaasaa isbedelka ku dhaca y waxay iyadana sababaysaa in isbedel ku dhaco hal unit oo egasa. haddii hal unit oo egas uu ku darsamo waxay saameyneysaa sidoo kale waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa company real estate ama wakiilka guryaha ka wakiilka ee guryaha iibiya ayaa wuxuu doonayaa inuu inuu sameeyo oo baaritaan la xiriirka ka dhexeeya qiimaha guryaha iyo maxaanku idhaahdaa sayskooda, inta food ee gurigu ka kooban yahay, guriga inta meter square ee guriga uu ka kooban yahay iyo briceka guriga ayaa la isbarbar dhigaya. oo gurigu ka weyn yahay uu ka qiimo badnaanaya sidaynu ognahay. marka gurigaas waa imisa meter square buu ka kooban yahay. waxaa lasoo qaatay tusaale ahaan 10 database data ayaa lasoo qaatay, 10 guryaa lasoo qaatay. waydu waxay nooga taagan tahay qiimaha guryaha oo lagu cabiro 1000 lagu dhiftay 1000 wixii kumanaan kun ah. Independent variable x-na waa square feet-kii ayuu nooga taagan yahay. datada maynu soo qaadanay. guriga koowaad 245,000 marka wuxuu ka kooban yahay 1400 oo meter squared oo kale. 312,000 guriga waxa weeyaan 1600 oo meter squared sidaas oo kale. kan u dambeeya 255,000 oo qiimihiisu guri halka ku yaala meter square-kiisuna waa 1700. labadan aad ba meter square-ka baynu markaa xiriirka ka dhexeeya meter square-ka ama square feet-ka iyo house price-ka ayaa isbarbar dhigaya. datada noocana soo baxday marka scatter plot-kii sidan uu soo baxay. marka waa imisa data waa imisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa 10 guri. hore ayaynu usoo qaadanay sida loo isticmaalay data egaska lagu sameynayo. waxay noo soo baxay regression equation-kii wuxuu noqday house price-kii hat waa hat, calaamadaas waa hat, waa y hat-kii baynu nooga tagnay. guryahaas baynu qiyaasnay. intercept-ki wuxuu noqday 98.24833. waxaa lagu darayaa slope-kii oo inoo noqday 0.10977 xi-dii oo square feet inooga taagan. marka intercept oo 98 ka noqday iyo square feet halkaas inooga soo baxday markii aynu maxsuulkii ka helay excelka. marka house mode price-kii aynu kusoo saarnay scatter plot and regression analysis oo kan ah. halkaasi waxa weeyaan slope-kii weeyaan, slope-keenina 0.10977. xaggan hoose intercept-giina wuxuu noo soo baxday 98.24. marka modelkii aan dhisnana lagu yidhahdo equation modelkii sameeyna sidaas ayaad u sameynaysaa. sidaasaan usoo baxaya. waynu macnaynaynaa marka house price-ka maxaa looga jeedaa, muxuu faa'iideynayaa 98.24883. waxaynu hore usoo sheegnay haddii aynu x-tan ka dhigno 0, intan haddii aynu iska ilowno oo aynu intaa iska qarino, macnaheedu waxa weeye celceliska house priceska marka intaan iska qarino wuxuu inoo soo baxayaa oo keliya 98.2488. waxaynu markaan yidhi macno badan sameyn mayso, laakiin tan baa macno badan inoo sameynaysa oo ah beta 1 square feet. marka macnaheedu tan hore waxay ka dhigantay no house had 0 square feet. haddii tan aynu ka dhigno maadaama aynu tan aynu iska qarinay oo aynu eber ka soo qaadno, macnaheedu b waxay nooga dhigantahay 98 oo keliya, oo ah macnaheedu guriga qiimihiisu waa 98,000 oo ayuu noqonayaa. oo marka yacni aan la eeginba square feet-kii 0 buu noqday, laakiinse gurigaas macnaa wuxuu noo noqonayaa
98000 haddii intan la qariyo. haddii intii muhiimka ahayd waa intan oo ah p1x square feetka. p1 measures the estimated change in the average value of y as a result of a 1 unit change in x. p1 waxay noo cabiraysaa qiyaastii isbedelka ku dhacaya celceliska qiimaha y, oo natiijada ayna siinaysaan haddii hal unit oo isbedel ku dhaco x qiimaha y ina siinaysaa. macnaheedu maxay tahay marka p1 maadaamay tahay 0.01977 waxay noo sheegaysaa in celceliska guriga qiimihiisa uu kordho $110 haddii ay kordhaan. macnaheedu haddii 0.0977 aan ku dhifano kunkii waxay noo noqonaysaa $110 celcelis ahaan ayaa halkii yani mitr squarekii kastaaba guriga qiimihiisa wuxuu ku kordhinayaa 109 ama $110. macnaheedu waa sidaas. halkii mitir ee guriga haddii uu kordhaba guriga qiimihiisa wuxuu noqonayaa $110. halkii hal mitir hadduu guriga ku kordhaba guriga qiimihiisa wuxuu noqonayaa $110. oo waxaa taasiiriyey kordhintii lagu kordhiyey hal mitir square gurigii qiimihiina markaa wuu kacay oo mitirkaasaa kicinaya oo wuxuu ka dhigay markaa $110. sidaasay markaa isu saameynaya. marka b1 square feetku faa-idada uu leeyahay waxa weeyaan hal unit oo kordha. sidoo kale wuxuu effect garaynayaa ydii ama dependent variablekii ama house pricekii ayuu kordhinaya. waxaan filayaa inaad si fiican fahanteen. prediction using regression analysis, qiyaasta loo isticmaalayo regression analysis. prediction of the price for a house with 2000 square feet. waxaa lagu yidhi bal 2000 guri bal waxaad qiyaastaa guri 2000 oo mitir square ah qiimee. oo real estate agentkii ayaa lagu yidhi noo qiimee guri haddii uu ku kordho 2000 oo mitir square ah qiimihiisa. dabadeedna markaa house pricekii halkan square feetkii unbaa lagu dhifanayaa, halkan 0.01998 ayaa lagu dhifanayaa square feetkii oo aada dooneysay in aada qiimeyso haddii uu gurigaasi uu yahay qiimihiisu uu yahay mitr squarekiisu 2000. 2000 waxaa lagu dhifanayaa 0.100, dabeedna waxaa soo baxaya 317. that the predicted price for a house with 2000 square feet is 317,850. gurigii 2000 mitr square ahaa wuxuu isbedel ku sameeyey qiimihii guriga inuu noqdo 317,000 oo dollar ayuu gurigaasi noqday haddii gurigaasi 2000 oo mitir oo square uu ka kooban yahay ama 2000 oo mitir square feet ah uu ka kooban yahay. taasna filaya inaad fahanteen. hadaad macnaheedu waxa weeyaan siday isu afeed garanayaan. interpolation versus extrapolation. markaad isticmaalayso regression modelka ee qiyaaseedka only predict within relevant range of data, waxaa inta badan la qiimeynaya rangeka kor ilaa hoos inta udhexaysa daatooyinkan ayaa inta badan la qiimeynaya oo rangekeenu wuxuu ka kooban yahay 1000 ilaa 2500 inta udhexaysa ayay inoo saaran yihiin datadii ama observationkeendii. marka wixii intaa udhexeeyana waa interpolation, wixii ka baxsanna waxay noqonaysaa extrapolation. marka inagu waxaa xooga la saaraya inta filiqsanaanta datada inaga aynu soo ururinay
halka inta udhaxaysa ayaa diiradda la saaraya, oo daatadeena rangeka ilaa rangeka inta udhexaysa ayay daatadeenu ka badanana marka focuska waxaa la saaraya intaa dhexe. waxaynu soo qaadanaynaa iyaduna aada iyo aada muhiim u ah cabiraadaha filiqsanaanta, ama haddii aan yidhaahno measures of variation wax la yidhaahdo. cabiraada lagu cabiro iyaduna waa tool xisaabeed inta badan cabiraya filiqsanaanta daatadaada iyo isugeynta isugeynta totalka filiqsanaantaada iyo filiqsanaanta wax sharaxa iyo filiqsanaanta aan wax sharaxin. iyada waa tool iyada xisaabeed u baahan in la yara un fahmo marka hore daatadeennii waxay ka kooban tahay filiqsanaan. total variation is made of two parts, laba qeybood ayay ka kooban tahay. tan waxaa la yidhaahdaa total sum of squared. total sum of squared waxay la mid tahay regression sum of squared ama sum of squared regression, saa doonta u akhri, oo lagu daray sum of squared error sum of squared. marka labada marka laisku daro waxay la mid tahay totalka. haddii aynu qaab kale xisaabka aynu ku muujino, oo markaa waxaan filayaa intani waxay ku muujisan tahay qeybtii ugu horeysay aynu kaga soo hadlaynay baadkii koowaad, qeybtii koowaad waynu soo xisaabinay, taasoo kale total sum squaredka yi minus y mean squared oo wadarteeda ayaa totalka variationka uu noqonayaa. regression sum of squared variationkeeda wuxuu noqonayaa y hat minus y mean squared, oo iyaduna y hat. tana y hat inagu maynaan soo xisaabin, laakiinse waynu xisaabin doonaa sida loo soo saaro gacanta y hatka. iyo sum of square error oo iyaduna lamid ah isugeynta yi minus y hat squared. y bar ba saa loo akriya, y bar ama miinka y ama celceliska y waxay la mid tahay average value of dependent variable. waa celceliska dependent variablekeena. y-na waxay noqontahay observed value of the dependent variable, waa asalkii daatadii ama dhibicdii inoo saarnayd daatooyinkeena y mid ka mid ah, iyo y hat i oo ah tii qiyaaseedkeeda, tii dambe aynu qiyaasanay. waxaa jira daatada midna waa midii hore ee asalka ahayd, tanna waa tii dambe aynu lineka regression lineka dul saaran, ama aynu doonayna inaynu qiyaasano oon kasoo go-no daatadeenii hore oo aynu ka dhigno mid qiyaaseed ah oo celcelis inta badan ku xidhan ku saabsan. measure of variationkii baynu ku jirnaa. marka total sum of squared wuxuu inoo cabiraa measures the variation of the yi values around their mean. wuxuu ydu inta celcelis ee filiqsanaan ay magaranaysaa miinkooda, y miinka celceliska intay isu jiraan, filiqsanaanta intay ku urureyso celceliska y ayay noqonaysaa. sum of square regression explaining variation attributable to the relationship between x and y. waxay noo sharaxaysaa waxyaabaha ku xidhan xiriirka ka dhexeeya x and y, waxyaabaha factoriska kaleete ee ku xidhan regression analysiska ee u dhexeeya x and y ayay inoo sharaxaysaa regression sum of squaresku. sum of square error ama error sum of squares iyagana waa variation attributable to factors other than the relationship between x and y. errorkan ama waxyaabaha aan odhan karno hab soomaali cilad
modelkeena waxaa aan markeenii hore dhaatada marka lasoo qaatay waxaa jira waxyaabo kaleeto aan markaa la sharaxin oo cilad ah keeni kara. Marka waa ciladaha ku iman kara modelkeena ee markaa hadda la cadaynin ayay noqotaa errorka. maxaa kamid ah si aynu si fiican ugu fahanno? waxaa kamid ah mathalan gurigii house pricekii iyo waxaynu soo qaadanay iyo meter squarerkii, xidhiirkii ka dhexeeyay qiimaha guriga iyo, laakiin guriga waxaa jira factories kale oo la xidhiidho oo lagu iibsanayo house priceskii afad kareynaya. waxaa kamid ah gurigu ma leeyahay meel lagu dabaasho, guriga jaarkiisu ma yahay jaar wanaagsan, guriga bilicdiisa iyo hareerihiisa iyo meesha ku yaalo meel buuru ku yaala ama meel banaan ku yaala, magaalada dhexdeedii oo la yidhahdo si magaalada bartankeediibuu ku yaalaa. factorieska kale wuxuu uu saameyn ku yeelanaya guriga iibkiisa, oo iibkiisa waxaa inta badan la eegaa meesha uu ku yaalo, dhacdadiisa, xiriirka dadku jaarkiisa, maxaan ku dhahdaa meesha uu dhacdada, locationka, waxaasoo dhan other factorieskaasi ayay inta badan errorsku sheegaa. marka errorskii ama cabiraadii khaldamayd waxaa goynaya oo soo ururinaya waxa la yidhaahdo SSE daas oo errorkii ah ama ciladihii kaleeto ayaa iyada lafteedaba filiqsanaan keenaya. filiqsanaantaasi waxaa ka mas-uul ah oo equationkeenii qeyb ka qaadanaya sum square errors. oo sum square errors badanaa wata zero buu noqonaya errorska. marka mar kaleynu gacanta kaga shaqeyneynaa ayaynu sii sharaxi doonaa insha allah. marka waxaynu ku joojin doonaa insha allah halkan oo ah measures of variationkii oo weli socda. waxaynu soo sheegnay inuu yahay kani total sum of squared oo ah yi deviationka y iyo miinkeeda, ama yi oo laga jaray y mean squared ayaa totalka ah oo ah observationka halka inoo yaala ilaa miinkan oo ah daatadeenii celceliskeedii oo ah y bar ama y mean ilaa inta udhexaysa ayaa la yidhahdaa total of variation. intan miinka ilaa iyo regression analyse kan waxaa la yidhahdaa y hat baa la yidhahdaa. dhibicdaas halkaasi waa y hat iyo yi oo ah dhibicdeenii hore oo u taagan yi iyo modelkii dambe ee aan excelka markaan gelina ka shaqeynay wixii soo baxday oo la yidhahdo y hat oo ah regressionka lineka inoo muujinayo. inta udhexaysana waxa la yidhahda errorskii sum of square errors. y hatka ilaa y mean farqiga udhexeeyana waxaa la yidhahdaa regression sum of square oo ah y hat oo laga jaray y mean. marka labadooda laisu geeyana waxay lamid tahay total sum of squared. iyadana waxaynu ku arki doonaa maxsuulka. halkaasaynu ku joojinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo qeybta dambe ee shanaad.